وقابريا ووطني وقلكادايا ووطني وقابريا ووطني وقلكادايا ووطني كوقضا كرايا ووطني وقابريا ووطني وقلكادايا ووطني وقابريا ووطني وقلكادايا ووطني marka hore waxay farxad ah maanta inaan ama caawa aan la kulmo aqoonyahankii reerka oo waliba aqoonyahankii reerka oo waliba saboodsan xisbiga wadani aad iyo aad bay aniga sharaf igu tahay run ahaantii ka dhalinyaro aqoonyahan wuxuu baan anigu idin soo jeedin lahaa ina ka qayb gashaan xisbiga kolba halka uu marayo madaxda haday tahay qaybihiisa kala duwan haday tahay inaydan meel un fadhiin oo dhex gashaan oo ka qayb gashaan si goorno aga mid noqotaan degmada Axmed Dhagax iyo degmada Koobiyada waa labada degme ugu horeeya xisbiga wadani muxuu ahaa gobolka Maroodijeex waa labada degme ugu horeeya siiba degmada Axmed Dhagax waa degmada ugu horeysa qof ka murmi karo xisbiga wadani jooga madaxdu doonaha noqdo qof diidi kara ma jiro inay xaafada degmada Axmed Dhagax ay tahay xaafada ugu horeysa xisbiga wadani waxa weeye laba arrimood baan ka hadlayaa odayaal kalena way ka dambeeyaan doore waxa weeye deelka guntiisana ku jiraa bal xaaladda dulka halkay marayso inaan idinka warramo waxa la socotaan institutionadii dawladdu baarlamaanka wuu inaga dhintay guurtidii way inaga dhimatay maxkamadiina way inaga dhintay intaas oo dhan waxa curyaamiyay xukuumadda ama fulinta waa ogtihiin oo waa daawataan haddii la socoteen doodihii ka jiray markii dekada la wareejinayay qaabka loo wareejiyay waa la socoteen dekada dan Soomaaliland leedahay looma wareejin waxa jirtay labadii dawladdan ka horeeyay aad ba ictiraafka loo hadalayn jiray aad ba loogu daali jiray meel baa la soo gaarsiiyay imika wax ictiraaf hadal haya ma inaan arag horta halkaas aynu ka maraynaa wax dalkan waxbaynu ku leenahay daawadayaal kama noqon karo haddii aan leedihiin waariyaaraha nimankiinan madax cadcadli halka soo fadhiya qayladii buuqa nagala tago anagu waanu daawanaynaa in daaya noo cadeey anaanu iska nasanay anagu wax shakhsi oo doonaynaa ma jiro wax shakhsi oo doonaynaa ma jiro war dalka ma badbaadinaa weey dalka waxbaynu ku leenahay daawadayaal ka noqon mayno maalin walba dusheena la isku haysan maayo kaalinteena way ka maqantay dalkan kaalin waynu ku soo lahayn oo halgankii kaalintii weyneed baynu ku lahayn xilkii ugu sareeyay ee sanamna waynu ka soo qabanay dawladdii u horeysana xilkii ugu sareeyay baynu ka soo qabanay intaa wixii ka dambeeyay waxa la yidhi musla ootay oo la meertay ayuunu saa ugu dul wareegayno tirada ceelashay bilaashkay dawladdeena la siiyay 7 sano kulmiye jiray 200 way ka badan yihiin jiideenu bari ilaa galbeed ceel laga cabo ayaa loo diiday social service-kii loo qabanayay ummadda ka dhaxeeyay ama biyaha ha ahaato ama caafimaad ha noqoto ama xoolaha oo la hagaajiyo ha noqoto wax walba uu ka qatanay dhinac walba de horta caawa xisbi ahaan baynu isugu nimid dhalinyaro waayeelba waxaynu isu sheegaynaana waxa weeye khasaaraha inoogu sugnaa xisbigii kulmiye ee aynu ku soo tacabnay
ee dabadna inaynu ka tashanaa dee caqliga saliimkii uu keenayo iyo faa'iidada aynu ka rajaynayna xisbiga wadani si aynu uga wada dheregno asbaabaha aynu kaana uga tagnay kana uga biiray oo dabadna inagoo mid ah aynu dadkeenna fariintaa ugu gudbin lahay waa laga soo warramay dhaliilaha xukuumaddu lahayd sida aanay guud ahaanna qaranka si habsamiya ugu adeegin gurac iyo qallooc mooyaane ilaa burburinta hay-adaheedii qaran iyo sida ay degaankeenna gaar ahaanba u dayacday biyo la-aanta imaka halkaa aynu taaganay ka taagani dee ilaa iyo caalay ka taagan tahay xuduudkaa lagaga baxayaa dee biyo la-aanta sidaa la sheegay meel ceel biyaa laga qoday oo jiilaalkii la manaafacaadsan karaa haba yaraatee ma jiro degaan ay beeshu degto bari ilaa galbeed adeegyada bulshada oo dhan bay ka qatan tahay waa xukuumadda marka ay tahay waxaa kaga taamilo qaadataan waxaa la iibinayo laaluusha aan la qarinayn oo xaqalqalin loola baxay ayaa laga qaataa markay laba dhinac heshiis gelayaan ee qolo waliba danteeda ka eegayso heshiiska ay gelaysa maxaa danteedu ugu jira dee inay qolona qolo xaqalqalin ka qaadata maaha waxaanu imanayaa xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye part and parcel buu ka yahay qayb buu ka yahay waxaa socda ibaaraadka uu raacay gudoomiyihiisu ahna musharaxiisu meel kastoo wax lagu soo qaadanaya meel kastoo wax lagu shiirayaba waa la joogay qayb buu ka yahay waxaa dhacaa dalka loo dhacninka ah qayb buu ka yahay isagii baan haddana maanta la hadlay doorto xisbigii kulmiya waa kaa markii annagu aanu xukuumadda iska casilnay waxaanu isu casilnay musharaxa madaxweynahanaan markaa u arkayn inuu dan ummadaba guud ahaan inuu dan u yahay ayaanaanu arkayn waar nin dhaama xisbiga ka soo saartaan baanu lahayn si dimuqraadi ah loogu tartamaanu lahayn haddiina laga guulaysta xataa waa nalaga gerheli lahaa maalintaasoo xagee qabanaysa baa loodhan lahaa dee waa laydinka guulaysta oo sharcigaa baana qaban lahaa laakiin markii la xidhay ee la yidhi lamama tartamayo oo inanka jaandhihii aqalkaa maanta aynu joogno salaadiintu ku soo bandhigeen ee yidhaaheen wuu hadlay oo wuu issharaxay maxaa la qabanaysaan maxaa la qaban karaysaan siyaasiyiintoo dhan la isugu yeedhay hoolkaa aynu joogno ee aan halkaa ka raacay aniga iyo dee intii midharkii la arrin ahaa waa loo diiday oo dee waa ka warhaysaa inuu ka tartamo degaanku ka soo jeedina cod baa laga doonaya haddana waxaana loo quuri waayey waar bal saddex ha ugu rido tobanna ha ugu rido ya midhar ha ugu ridaane hayse joogtaaga meeshaa loo quuri waayey hadli kartaan baanu uga baxno oo ummadda wuxuu sheegi kartaa waar danti kuma jirta ninkaa dabeedna nin kaloo isla xisbiga bal ciddii dhaantaha in la helo ayay ahayd markii taana loo diiday markaanu taa isla yeela ee haddana xisbigii la xidhay ee beebeeyadii iyo tiknikadii iyo lacagtii dowladda lagu xidhay lagu meelmariyey xisbina inaan waxba noo oolin baanu aragnay dabeedna inaanu ka digan rogonno dee dan baa keentay haddaanu taayada raacayno dee labada sannadood dhadhowaa nimanka ka maqnay carruurteedu masaariif bay heli lahayd oo biilkaan qaadan laha haddaan aniga dee tayada raacayo tiinaan raacay dee iyo inta kale inaga dambaysa xisbilxaakim baynu dee guddoomiyihiisa higsanayna oo talada dee dalka wax ku yeelanaya oo aan baarintaa wasiir dee loo baahnayn wixii loo baahda dee xisbilxaakimka guddoomiyihiisa dee loola tegayo oo talada wax ku yeelanaya yuu idinla sahlanaanin hadday cid kala haysataa oo xisbiyada kale lagu hayo dee beeshu ha raacdo laakiin markaan taa ka sheekeeye ay tay ya inagu laantaynu ku taaganay dee jarayna mooyaane dee sabab aynu waddani uga maqnaanaa dee meesha ma taallo kama muuqato
ballankeenu waxa weeye inaynu ololibaa dee dhowaanba iska bilaabmi doone inta ka horeysa inaynu sidii aynu u shaqayn jiray ka dardargelinno oo war qaadata oo waa dhargi doontaanoo mas-uuliintu waana iga damaynaysaa warka markaynu ka dheregno anigoo ka baxayo anigu sidaan qoladaa hore ula shaqeeyey mar walba way ku sawiranta inaynu mar madaxweyne noqono madaxweynaha markaynu noqonaynana nin kastana inay laabtaa ugu jirtaa wanaagsan waayo hamiga wanaagsan mustaqbalka wanaagsan markuu ninku high levelkiisu yahay wuu helaya innagu waxaynu doonaynaa maanta laga bilaabo inaynu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland noqono laakiinse xagee loo maray maqarse shacbiga ku gelayna somaliland jaranjaraday u samaysatoo dhan waa maraynaa si xalaala oo xor aynu ku gelayna dhabbadaa aynu maanta saarayna ayaa ka weynoo shalayta xaqsoor waan la shaqeynay maxaynu u shaqaynayna wax kale maaha waa inaynu madaxweyne noqono urur baynu ka bilaabnay waayo sharcigaa kaa dhigaya xusbi baynu mari lahay maanta waxaad moodaa inuu ilaahay cawanaqeediina siiyeyoo aynu soo dhawaanay